إن واتهاي مركن حول بنينا عندك سي قطب السرادة بولشة السيابة كلا دوبن وأمسين يهين أنت بدن قطب السرادة حا إن lagu qeexaa ama lagu tilmaamaa in gabadhii wiilka heshiiyaan isla markaana guri qarsoodi ah oo labadooda bis ka dhaxaysa is guursadaan gabadhiina gurigeeda ay joogto iyada oo maxaa lahaa nin soo guursatay reerkiina aysan ka barqabin bal arintaas ka waran horta nikaax sir ayaa la yiraahdaayo waa nikaax qarsoodi ah nikaax qarsoodiga ah waxa loo kala qaadayaa midalan gabadha xaaladeeda sida ay tahay waxayna dabada la gelaysaa arintaas iyada ah maxaa laga qarinayaa horta waxa dhici karta khudbasirada sida Soomaalida qaarkood ay u sameeyaan nikaaxi caadiga ahaa gabadha yani aabaheed oo waligii ah zawji oo lagu nikaaxinayay marxaatigii intaba ay joogaan oo processkaas intii la maro saas nikaaxi uu ku dhaco laakiin waxa laga qarinayaa ninkana waxa laga yaabaa inuu midalan reer kale leeyahay wuxuu ka cabsanayaa marka hadii la ogaado in mashaakil uu reerkii xaqiisa kaga yimaado marka inuu qariyo marka arintaas iyada ah oo sidaas caruur ay ku dhashaan caruur marka 3 4 5 ka bacdi ay soo shacbaxaan oo la ogaado ninkan inuu reer kale leeyahay marka midka noocaas oo kala ah oo khudbasirada noocaas oo kala ah oo talaabooyinkii nikaaxi caadiga ah martay oo laga qariyay maxay yahay reerkii kale una maqlintaas ah yani taas hadda nikaaxi waxa uma dhimayso yani waligii wuu joogaa intii la marin lahaan waa la maray gabadha laga qariyay umba mushkiladaas ayay tahay waa noocaas kaas marka gabarka qarintaas iyo in wixii la qariyo ma fiicnayn iyo in la sheegaa fiicnayd waa wax kale laakiin nikaaxi sida uu yahay waa wax caadi ah oo mushkilada xaqiisa kama jirto laakiin mid waxa jira ah gabadh ama waxbarasho ku jirta ama dugsi sare ama jaamacad oo reerkooda ay ku og yihiin inay waxbarasho ugu jirto yaa marka qaarkood waxa dhacda wiil inay heshiiyaan oo isla baxsadaan oo mid loo yaqaan marka masaafada oo intay masaafo jaraan meel kala tagaan nikaax ay sameystaan nikaaxaas ay sameynayaan si nikaax loo sameyn jiray horta ay u sameynayaan oo gabadhi waxay sameynaysaa baabu taxkiim wax la yiraahdo waxay ka xukun yeelanaysaa sheekh markaas meesha jooga inuu u nikaaxiyo ay rabaan ayay wilaayadii saaranaysaa laba marxaatina wuu joogaa oo meesha ayay joogaan wiilkii lagu nikaaxinayna waa lagu nikaaxiyay marka in masaafadaas la aaday iyo laba qof oo aan isqabin inay inta isla mareen iyo dambigaas iyo waxaas ka dhalanay waa shay laakiin aqdigiisii sabab ma dhacay mise ma ansixin oo ilmihii ka dhasha sidaas wixii lagu sameeyo ma xaaraan ay noqonayaan mise xaaraan ma noqonayaan taas u baahan marka in wax laga yiraahdo horta nikaaxa dadkan saas sameeyay xumaan iyo zino ma ayna u soconin haday xumaan u socdaan 90 kilomitir ayna socon lahayn meesha ugu dhow ee magaalada ay joogaan ay isku bilaabi lahayn oo asaas inay marka ismihirsadaan oo sharciga waafajiyaan ayay saa u yeeleen marka masaafana la yiraahdaa masaafadaas marka nikaax ahaantii aqdi ahaantii uu aqdismaya oo ilmihi saa ku dhasha lama dhahayo waa ilmo xaaraan ku dhashay ma fiican yahay ma fiicno wuxuuna u fiicnayn sidii wanaagsaneed ee sharafta ahayd ee gabadha reerkooda in laga soo doonto ahayd lama sameeynin dadka qaar waxay sameeyaan inta hawsha saa u sameeyaan yey marka dambe soo sheegayaan oo gabadhii inay sidaas ayuu ku sameeyeen waana dhaqan Soomaalidu ay leeyihiin oo waxay sameeyaan xaal iyo xumeyn wax la yiraahdo ayay soo raaciyaan marka inuu xun yahay waxa daliil u ah xaal iyo xumeyntan baa waxay tusaysaa in wax la haleeyay oo hadii aan wax la haleyn lahayn xaal iyo xumeyn hada arooskan caadiga ah gabadha reerkoodii xafladda lagu qabanayo ee laga soo doonayo markii la keeno Suuriyada oo cimaamada lagu soo duubo oo dadka meesha jooga lacagta loo qaybinayo laba looma kala dhigin oo lama dhigin intana waa Suuriyadii intana waa xaal iyo xumeyn lama dhahayo Suuriya bis la bixiyaa laakiin midkaas kale laba laga kala dhigaa qaybna waxa la yiraahdaa waa xaal iyo xumeyn oo gifkii dhacay ayaa la iska xaal marinaya qaybna waa Suuriyadii marka Soomaalidu halkaas ay ka bilaabay waxay ku leeyahay wax arintaas dhacday dhalinyaro ayaa isku gardarootay ama isku xumaatay wixii dhalinyaro ay haleeyaan odayaasha ayaa saxa saas daraadeed waxada koow ama ahna wax dhici jiray hana laga raali ahaado adii inay wuxuu yiri dhaantay inay xunta waxaan ku gartay habeenkii maxaa loo tumaa
marka arrintan inay xun tahay waxaa ku tusaysa maxaa xaalay xumeyn loo bixinayo maxay saasay tahay marka waa wax laga fiican yahay oo aan wanaagsanayn haddana waxaan rajaynayaa dadku inay wada ogyihiin inay aad iyo aad yani usii yaraatay oo beri hore inay intaan ka badnayd laakiin dadku markay wax barteen oo guurkiina la fuudeeyey oo berigii hore hataa soomaalida waxaa laga yaabaa waxyaabaha ku kalifaya inay ahayd guurka oo ku adag iyo shuruudaha lagu xiraayo oo adag inay isla baxsan jireen laakiin maanta wax keenaya in la isla baxsado ma jirto dadkii waxbay barteen magaalada la joogaa waalidiintii ayaga ayaa diyaar u aho hataa inay kabaan gabadha reerkooda oo markii yani qofka duusan waxaysanin oo kale intuu heli karo intuu keeno in kale lagu sii daro ayaa la sameeyaa marka waa daahiro jiri jirtay oo laga fiican yahay in la sameeyo oo ay tahay in la iska daayo oo sida caadiga ah dadku ay gabdhaha usoo doontaan loo soo doonto waa tahay qaybii u dambeeyay barnaamijkan isla soo gaarna ugu dambeyntii arinta waxaa rabaa inaan ku laabta ahayd burburka qoyskaan rabaa inaan usoo laabto qoys dhisan 2 sano ama 3 sano oo waxaa arkaysaa burburay maxaa u sababi kara burburkaas qoyska طبعا waxaa dhici karta asbaab keenta inay jirto oo dadkii yani guur soo galay habdhaqanka dambe ee la wada dhaqmi waayo ayaa laga yaabaa inay ka soo baxdo inuu dhici karana waa waxyaabaha sharciguba yani ugu daray oo suuradan oo quraankeena waxa loo magaceedu yahay suuratu at-talaaq ayaa la yiraahdaa suuradii furiinka marka dadkan bini aadam waaye hadday wada dhaqmi waayaan yani waa meesha ugu dambayso aakhiru cilaaj alkayu binaar la yiraahdaa waxa ka horeysa hadii la isfahmi waayo wadooyin ka horeeyo oo la isku dayo in lagu daaweeyo arintaas iyada oo kamid midna in la wacdiyo in yani talaabooyin la maro hadii laakiin talaabooyinka dhan ay waxba ka soo naas cadaan waayaan ugu dambaysa labadii qof inay kala tagaan sharciga qaba oo in tafarraqa yughni Allahu kullu min sa'ati haday kala tagaan qof walba ilaahay yani hortiisu ayuu khayr dhigaya marka una isfaham la'aan duruufo yani oo soo usboonaaday khilaafkii dhacay oo si loo xaliyo la garan waayay waxyaabo badan oo caqabada ah ayaa keenaya arintu iska caadi ah iskama imaato saas dad badan markii su'aal ay soo weydiin waxay leeyihiin sheekh anigu xanaaqsan ayaan gabadhii furay qiilma la ii heli karaa asoo laga yaabo inuu saddexdii ku furay markaas asoo u arkay xanaaqaas in loogu khafiifiyo jawaabta markaas waxaan ku iraahdaa horta qof aan xanaaqin wax ma furaba qof oo caadi oo isku wanaagsan oo noocaas furin ma dhex maro markii la isku xanaaqo oo la isfahmi waayo markaas ayuu imaada furiinku marka wax fiican ma aha laakiin haddana markii laga fursan waayo oo meel kale looga wareegto la waayo in dadkii isku dhaganaadaan waxaa ka fiican inay isnabadgeliyaan oo banaan kala maraan oo ugu dambeyntii xal uu noqdo su-aasha ugu dambeysa rabaa inaan ku weydiiyo dhalinyarada maxaa ku baraarujin lahayd dhankaas iyo arrimaha guurka طبعا dhalinyarada waxaan ku baraarujin lahaa xadiidka mar walba markii nikaax dhacayo la akhriyo oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri ya ma'shar ash-shabaab man istada'a minkum al-waqt falyatazawwaj qofkii kari kara inuu ka bixi karo takaaliifta guurka uu leeyahay ha guursado maxaa yeelay faa'iidooyin badan ayaa ugu jira marka dhalinyarada waxaan kula dadaalmi lahaa inay u diyaar garoobaan guurka si wanaagsan wax u doortaan si wanaagsan wax u dhaqdaan faa'iidooyin badan ayay ku gaarayaan guurku waxyaabaha wuxuu kamid yahay ilaahay uu nolosha uu ku fuudeeyo oo ilaahay yani u kaalmeynayo qofka oo guursada asagoo oo raba inuu ku dhowrsanaado dhalinyarada marxaladda ay ku jiraan waa marxaladda ay daaqada iyo enerjiga iyo xooga ay leeyihiin haddii ay duqoobaan hadhow yani takaaliiftan waxaa laga yaabaa inay dhib u arkaan oo guurka dhanba iska daayaan marka guurka sida diintaba u dhiirigelisi ayaana kusii daraya oo u dhiirigelinaya dhalinyaradu in ay kii kari karaba inuu noloshaas maareeyo inuu guurka uu soo degdego oo uu guursado si fiicanna gabdhaha loo dhaqdo gabdhuhuna ay fuudeeyaan waxyaabaha guurka fuudeyn kara oo ayna korka ka saarin dhalinyarada waxayna awoodin oo ugu badan inta badan waxyaaba maalmaha ugu horeeya xoolaha lagu baabi'iyo hadhow dambana xoolihii loo baahan doono marka xoolahan gabdhuhu ay hadda duulaanka ku yihiin oo saanyeel waa in saas la dhaho ha ogaadeen xoolahan inuu xoolahooda ay yihiin hadda inay baaba'aanna waxaa ka fiican inay u harsanaadaan si nolosha soo socota ay ugu kaalmaystaan waa tahay sheekh cabdilxay aad u mahadsan tahay sida quruxda badan waanooyinka iyo waxyaabaha guurka ee diinta ka qabtaan noogu soo jeedisay dhalinyaradana waa rajeynayaa inay baraarugaas ay qaadan doonaan barnaamijkeena marti ku noqotana waan kaaga mahadcelinaynaa waa tahay daawadayaal toddobaadkan halkan ayaan jeclahay inaan kusoo afmeero waxaa marti igu ahaa sheekh cabdilxay shii aadan in badan waa rajeynaya inaad ka wada bogateen baraarujintii oo dhanka guurka nagu baraarujiyay sidaan idiin sheegay toddobaadyada soo socda insha allah xalaqadaha guurka ayaan sii wadi doonaa waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo inay u harsanaadaan si nolosha soo socota ay ugu kaalmaystaan
واتهاي شيخ عبد الحي هذا ومحسن تهاي سيدو قروحت بدن إن وانوينك إيو حيابها جورك دين دكا قبطان وقصو جيسي لأن يردن وارجينا يا إنا يبرارو قاس إيقادان دونان برامج كنا مرتي كنا خطنا وانكاقم هاد علنينا أرجع مدن علي محسنتي واتهاي داوديال تضبات كان halkan ayaan jeclahay inaan ku soo afmeero waxa martii ugu ahaa Sheekh Cabdilxay Shiyaadan in badan warajeenay inaad ka wada bogateen baraarujintii oo dhanka guurka nagu baraarujiyay sida ay sheegay toddobaadada soo socda insha Allah xalqadaha guurka ayaan sii wadi doonaa waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo